isbitaalka Digfaar oo kamid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa muddo sanad kadib dawladda Turkiga waxa ay ka dhigeen mid kamid ah isbitaalada ugu casrisan Geeska Afrika. Ibrahim Sheikh Hussein Sheekeeye ayaa warkan magaalada Muqdisho ka soo diray. tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladii dhexe ee dalka uu hogaamiyaha ka ahaa Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa isbitaalka Digfaar oo kamid ah isbitaalaadka ugu waaweyn dalka waxa uu noqday mid hakad ku yimid howshiisa shaqo iyadoo sidoo kale ay burburiyeen dagaaladii sokeeye ee gobolka ka dhacay. Haatanse dawladda Turkiga ayaa waxa ay ka dhigtay isbitaalaadka ugu casrisan Geeska Afrika. marka la isku barbardhigo sanooyin ka hor siduu ahaan jiray isbitaalka iyo sida maanta uu yahay waa mid farqi weyn u dhaxeeya, waayo mar aan maanta tegay ayaa waxaa iiga muuqday dhismooyin casri ah oo uusan hore u lahayn. goor sii horeysay dawladda Turkiga ayaa waxa ay ballan qaaday in ay xil weyn iska saarayso dayactirka isbitaalka Digfaar ayna ka dhigayso mid ay ugu maarmaan dadka Soomaaliyeed gargaarkii caafimaad ee dalka dibaddiisa ay u aadi jireen. waxaana haatan muuqanaysa in ay soo noqotay intiisa badan. isbitaalka ayaa leh qaybo kala duwan sida qaybta qaliinka, qaybta haweenka, qaybta carruurta, qaybta cudurrada guud, qaybta bukaan socodka, qaybta dhiigga, qolal bukaan jiif ah iyo darjiimo waaweyn oo ay ku nastaan dadka bukaanada u yimaada iyo kuwa kale intuba. kuwaasi oo dhammaanba la dhisay inkastoo howshiisa uusan si rasmi ah u bilaabin balse la filayo. bilicda iyo muuqaalka isbitaalka ayaa dadka haatan waxa ay ka bixinayaan ififaalooyin wanaagsan, taasoo ah in goordhow ay iska joojin doonaan gargaarkii caafimaad ee caalamka ay u aadi jireen, waxaana taa ay ugu mahadceliyeen dawladda Turkiga oo dhabarka u dhigatay. xaaladda caafimaad dari ee Soomaaliya ka jirta iyo dib u dhiska isbitaalka Digfaar ayaa ah mid isku soo aadaya, waxaana hamiga dadweynaha Soomaaliyeed uu yahay hirgalka howlaha shaqo ee isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho. balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah dhisme qurxoon la arkayay dhaqaatiirtu sayay noqon doonaan. Ibrahim Sheikh Hussein Sheekeeye, Somali Channel, Muqdisho.